xildhibaan ay wax ka tirsan tahay golaha guurtida Soomaaliland hadalhaynta ugu badan ee hadda jirta waxa weeye maadaama labada doorasho ururada iyo madaxtooyada isku dhacayaan in muddo kordhin ay imanayso golihiina guurtidu haddii xukuumaddu muddo kordhin idin keento ma u kordhinaysaa adeerde maba kordhino waxaanu kordhinaa bil ka hor muddada dhammaadka xilka madaxweynaha anigu waxaan distoor ahayn haddaad sidii nimanka ururada sheegay wax u sheegayeen aad adagna wax ii weydiinayso kama jawaab ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu muddo kordhin noo keenin laakiin haddii ay timaado xilliga distoorku sheegayo golaha guurtidu adna wax kaa weydiin maayo mid urur haystana wax ka weydiin maayo mid xisbi haystana wax ka weydiin maayo taasoo ah dhammaadka muddada xilka madaxweynaha bil ka hor ayuu ku caddaynaya ma kordhinno annagu sannadkii ugu horraysay waa dacaayad golaha lagu wado oo sharaftiisa iyo karaamadiisa lagu caayo taana waan ka difaacayaa golaha waxaan leeyahay goluhu xilliga uu kordhiyo disteerkoy ku taallaa artikal 83 farqadiisa shanaad ha akhriyeen ragga beenta sheegaya ee golaha ceebaynaya ee la golaha kordhinaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa inaan dadka uga mahadnaqo halkan shacbiga ugu badan ee isugu yimid waxaan doonayaa inaan kilaar u caddeeyo tii kaleba wadiga weydiiyey inaan messajkii UN-ka ku celiyo oo aanaa UN-kii maanta hoos u dhannahay Somaliland midowga Afrika ayaa inoogu rafsan waxa hoonka jooga waxaan leeyahay daaroodkii Itoobiya wuxuu noqday Soomaalidiisii kii Jabuuti kiisii buu noqday kii Kenya kiisii buu noqday kii Soomaaliyana kiisii buu noqday waxaan idin ka codsanaynaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo midowga Afrikaba hartiga Somaliland daaroodka ka ah marka laga reebo kuwii 60kii ku dhashay oo constitution siidayo muwaadinimadooda in ay maanta Somaliland isu dhan tahay oo xuquuqdii ay beesha caalamka ku lahayd uu ururkan yahay dacaayadii la oran jiray dhulbahantii warsangeli baa maqan inuu muujiyo oo qarannimadii Somaliland ka dhabeeyo qolada baarlamaanka Ingiriiska waxaan ku leeyahay qoladii aad xaman jirteen idin la dagaalamaysa baanu maantana waan idhi imikana waan ku celinayaa waxaan leeyahay intiina maanta hadashay mooyee intii kale lahay way maqayiin xisbiga ugu horeeya final u baxay waa ka ayaga waa ururka nimanka deynkaanu ku leenahay ilaa cigaal ilaa iyo riyaale ilaa iyo siilaaye ilaa muuse bixi gobolladoodana waxaanu leenahay sidii aanu idinku codayn jirnay ugu codeeya ururkan aad baa